dalka Sweden gaar ahaan magaalada xarunta ee Stockholm ayaa iskuul halkaasi ku yaala oo lagu magacaabo Stockholm International Academy waxa uu xaflad maalmaha ciida u sameeyay ardayda wax ka barata iskuulkaasi. warbixintan waxaa Stockholm ka soo diray wariyahayaga Bashir Ugaas. iyadoo wali lagu guda jiro dabaaldegga maalmaha Ciidul Adha ayaa waxaa iskuulka Stockholm International Academy ee ku yaala bartamaha magaalada Stockholm uu qabtay xaflad lagu maamuusay maalmahaasi taasi oo lagu talagalay carruurta wax ka barata iskuulka. xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka iskuulka ayaa sidoo kale waxa ay ahayd mid si gooni ah uga faa'iideen dhallaanka wax ka barta iskuulka maadaama aysan jirin fursad tan oo kale oo ay helaan carruurta kale iyana wax ka barta qaar ka mid ah iskuulada ku yaala waddankani Sweden. haddaba ugu horreyn xafladani loo qabtay carruurta wax ka barata iskuulka Stockholm International Academy ee ku aadan maalmaha ciida ayaa waxaa ka hadlay maamulaha iskuulka Cali Geedi isagoona sharaxaad ka bixiyay muhiimadda xafladu ay ku salaysnayd. maanta run ahaantii waa maalintii ugu dambeysay ciida arafo sida Soomaalidu u tiraahdo ayaamu tashriiq maalintii ugu dambeysay waxaan marka ugu talagalnay ardaydeena halkan dhigata oo Soomaali ahaato ama qolo kale ahaato ardayda 100% halka dhigata waa muslimiin inay dareemaan maadaama waddan qurbe lagu nool yahay inay dareemaan inay tahay maalin muhiim u ah diintooda dhaqankooda ayna ku abtirsadaan inay maalintaani ay tahay maalintii ciid ah oo weligood ay ka fikireen sanadkoo dhan ay xisaabanayeen inuu tahay marka sidaa darteed ayaan xafladan ugu talagalnay inay ayagana dareemaan usbuucan oo dhan way sugi lahaayeen maalin walba way weydiin jireen waxay dhihi jireen goormee rector noo dhigaysa xafladii goormee imaanaysa maxaa imaan doona maanta alxamdulillahi rabbil caalamiin way noo suurta gashay inaan dhigno waana aad iyo aadaan ugu guuleysanay. walaal maanta waxaad saad u jeedaba xafladan weyn oo ka dhacday iskuulka International Academy Stockholm ku yaala waxaan u qabanay maadaama ay ahayd maanta ay maalmihii ugu dambeeyay ayaamu tashriiqa manaha ciidul adxada ayaan maanta waxaan ugu talagalnay carruurta Soomaaliyeed iyo carruuraha kale oo ajaanibta ah ee dhigta iskuulkan inay ay muujiyaan xafladda ciida inay muujiyaan dareenkooda ku muujiyaan ayna xoogaa ka helaan mataqaanaa si ay u xusiistaan maalinkan weyn ee farxadda leh ciida si ay u xusiistaan saas ayaan u sameynay. marka laga tago maamulka iyo howlwadeennada iskuulka Stockholm International Academy ee ku aadan qabashada xafladan dabaaldegga Ciidul Adha ayaa waxaa dhanka kale iyana ka soo qayb galay qaar ka mid ah waalidiinta ay dhigtaan carruurtooda iyagoona uga mahad celiyay munaasabadan ay u sameeyeen carruurtooda. bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u arkaa wax wanaagsan maadaama carruurta ay yihiin carruur maartay iskoolaadka dhigata inay maalmaha ciida ay helaan farxada dheeriya siiba midaan iskoolkan hadda carruurta noo dhigtaan anagu ay ilmaheenu ka heleen waa midaan aad ugu faraxsannahay oo laga yaabo iskoolaad badan oo ka jira magaaladan inaan laga helin marka 100% aad ayaan ugu faraxsanahay farxadda maanta ilmaheenu ay ku ciidayaan iyo maalmihii soo dhaafayba marka sidaas baan dhihi lahaa. marka hore haddaan ka hadlo xagga iskuulkan Stockholm International Academy waa wax aad u weyn ayay qabteen sida guddiga iyo rectorkaba hawl badan iyo shaqo badan iyo dadaal badan iyo wax weyn ayay sameeyeen sababtoo ah waxaa ka garanaysaa ilmaha siday u danaynayaan iyo siday u jecel yihiin inta yaro maanta aan weydiinay aan la hadlay iyo sida aniga groupkii aan la socday wax weyn ayay aad u xiiseynayeen. maanta waa farxad weyn oo iskoolka ku leenahay oo iskoolka la siiyay farxad weyn maalin hore ciid ahayd markaas fasaxan la siiyay maantana farxad weyn na siisay soo maanta kullu alfaraxsan yahay qof xanaaqsan meesha walaa maalin farxad oo iskoolka ciid festa ku leenahay sababta man daraadna ciid lahayn ma درادي عيد مالتا ugu ما توح فرحسنا عيد هاد دراد خلحت مدحه مونت عيد فين انا وحر عيد بكم وحسب سيع بس فرحسين عيد ممكن وعيارنا وحو دغسنا هنا
maalin fiican waaye iskoolka ciid festa ku haysanaa waxaa jira ciidii hore fasaxa lahaa iyo maalin fiican waaye maanta iyadoo la og yahay inaysan fursad u helin maalmaha ciidda ardada wax ka barata iskuullada ku yaala magaalada Stockholm ayaa ardada dhigata iskuulka lagu magacaabo Stockholm International Academy waxa ay heleen fursad ku aadan maalmaha ciidda taasi oo ay u soo qaban qaabiyeen maamulka iskuulkani Bashiir Ugaas Somali Channel TV Stockholm Sweden dalka Sweden gaar ahaan magaalada xarunta ee Stockholm ayaa iskuul halkaasi ku yaala oo lagu magacaabo Stockholm International Academy waxa uu xaflad maalmaha ciidda u sameeyay ardayda wax ka barata iskuulkaasi warbixintan waxa Stockholm ka soo diray wariyahayaga Bashiir Ugaas iyadoo wari lagu guda jiro dabaaldega maalmaha Ciidul Adha ayaa waxa iskuulka Stockholm International Academy ee ku yaala bartamaha magaalada Stockholm uu qabtay xaflad lagu maamuusay maalmahaasi taasi oo lagu talagalay caruurta wax ka barata iskuulka xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka iskuulka ayaa sidoo kale waxa ay ahayd mid si gooni ay uga faa'iideen dhallaanka wax ka barta iskuulka maadaama aysan jirin fursad tan oo kale oo ay helaan caruurta kale iyana wax ka barta qaar kamid ah iskuulada ku yaala wadankani Sweden haddaba ugu horeyn xafladani loo qabtay caruurta wax ka barata iskuulka Stockholm International Academy ee ku aadan maalmaha ciidda ayaa waxa ka hadlay maamulaha iskuulka Cali Geedi isagoo sharaxaad ka bixiyay muhiimadda xafladu ay ku saleysnayd maanta run ahaantii waa maalintii ugu dambeysay ciidda arafo sida Soomaalidu u tiraahdo ayaamu tashriiq